aad baad u mahadsantiin waxaan idinka mahad celinayaa marka koobaad soo dhaweynta qiimaha badan leh ee aad noo samayseen waftigeyga inuu wasiirku hogaaminayo oo anigu aan u qaadanayo soo dhaweynta inaan anigu ahay gundhigeedii soo dhaweyntaan leeyahay adiga lahaan isleeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa runtii in badan baan ku fikiray inaan gobolkan Sanaag dalxiis soo imaado inaan ceergaabo dalxiis soo imaado in badan baan ku fikiri jiray maanta waxa farxad iyo aniga oo mas'uula oo gobolkii ka mas'uula inaan idin imaado inaan imaado gobolkii awoowayaasha inaan imaado gobolkii khayraadka aan imaado inaan imaado gobolkii dahabka ceerga markaan ka imanayay saaxil ayaa dadkii soo sawtay waxay yiraahdeen dahabkana soo gaarsiiya dahabkiina waynu gaarsiin doonaa dahabka waynu gaarsiin doonaa fariintaana waa la ii soo dhiibay waynu iska celin doonaa insha Allah waxaan leeyahay horta kulli ari hadalkaygu ma badna maanta waa isbarasho waan idinka guddoomay soo dhaweyntiina labada caaqilladii iyo maxaan ku dhahay ragii fariimaha halkan ii soo firiyeen waxaan leeyahay war dhex baan ku shaqaynayaa ninna yaanu si gaar ah ii tirsanin si gaar ah cidina yaana ii tirsanin dhex baan idinahay gobolada waxa isdhaafiya dad midaysan oo wada socda odayo wada socda oo u hadlaya danta gobolka u hadlaya horumarka saasa lagu gaaraya dan gaar ah hadii loo hadlo lama gaarayo nimanka kale haduu masaxaan la gaari maayo waxaan leeyahay idinkoo 4 oday iyo 7 wiil ah inaad ii timaadaan waad garatay ma malaynayaa idinkoo 4 oday iyo 7 wiil ah inaad ii timaadaan oo aynu sida inagoo garba haysaysano aynu ku fulino hawlaheena aynu ku socodsiino oo aynu gobolkii wax ugu raadino ayaynu diyaar ugu nahay haddaad diyaar u tihiin oo hawsha ay garab taagantiin aniguna wax waan qaban karaa laakiin kali waxba kuma qaban karo diyaar ma u tihiin inaad ila shaqaysaan soo dhaweynta sida qiimaha la diigu soo dhaweyseen ana waxaan filayaa inaad ila shaqayn doontaan waan ku kalsoonaa insha Allah iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa hadalkayga oo kooban wasiirka arrimaha gudaha assalaamu calaykum